qof kastoo laba qof isku keenana aad buu mahadsan yahay qof kastoo laba qof isku keena bal bulsho iska dhaaf iyo ummadan iska dhaaf shiray soo qaban qaabiyeen qaar kamid ah culimo awdiinka ka soo jeeda qaar kamid ah jaaliyadaha ku dhaqan dalkan Uganda ayaa lagu qabtay magaalada Kampala ee xarunta dalkan Uganda shirkan ayaa waxa ka soo qayb galay qaar kamid ah culimo awdiinka ku dhaqan dalkan Uganda arday ganacsato iyo bulshada qaybaheeda kala duwan ujeedka shirkan ayaa ahaa sidii loo xoojin lahaa wax wada qabsiga iyo iskaashiga guud loogana wacyigelin lahaa dhalinyarada tahriibta iyo waxyaabaha la halmaala sidoo kale shirkan ayaa lagu doortay gudoomiye cusub waxa ugu horeyntii halkaasi ka hadlay qaar kamid ah waxgaradkii ka soo qayb galay warintiinaan oo maantay meel intay istaagay yiraahad wax aan ilaahay ugu run sheegayno xalaala ayaanu bulshada u horseedaynaa baa dawladnimadeena iyo karaabadeena ku soo noqon kartaa waxay ahayd su'aasha ugu horreysay Soomaali weyn la soo dhaxdigay alxamdulillah waataanu ka jawaabnay oo aanu gogol kaga dhignay si Soomaali weyn ay isugu timaado beeshu waxay ku baaqaysaa in qof kasta oo xil iska saaro sidii loo ogaan lahaa wax allaale iyo wixii dhibaato ku ah ummadda Soomaaliyeed lagana shaqeeyo maslaxadda iyo isu soo dhawaanshaha beeshu waxay cambaaraynaysaa falalka anshaxumada ah ee magaaladan sida tahriibka dhibaatooyinka kale ee gaar ahaan dadkeena Soomaaliyeed in aad la isaga ilaaliyo wixii dhibaato ku ah ummadda Soomaaliyeed oo dhan isqabsasho aan ugu yeerayno ummadda Soomaaliyeed daraadeed ayaanu shirkan waxaanu ku soo bandhignay xubnihii arrinka u dhaqaaqi lahaa ee u qumi lahaa ummaddu ma wada sinna oo de qoloba dhinacban bay ka shaqeynaysaa sidoo kale waxa shirka ka hadlay gudoomiyaha cusub ee la doortay Cabdiwali Faarax guddigan ay dooratay beelaha Soomaaliyeed kamid ah waxaan rabaa inaan wax yar ka taabto hadafka guddiga iyo meesha uu higsanayo waxaan idin sheegayaa guddigani waxay doonayaan inay la kulmaan guddiyada kale oo Soomaaliyeed oo iyaga ka horeeyay iyo kuwa ka dambeyn doona oo la doorto waxa hadafkoodu yahay inay sameeyaan midnimo Soomaaliyeed iyo